dad badan oo laandheerayaasha ka mid ah oo waxaan arkayay ninkan khayriga qayd la yiraahdo barnaamijkiisa ka soo horjeeday oo ku xanaaqsanayo lahaa wadanka laga saaro ninkan muxuu wadanka qabanaya waxaan duuduubay waa maxay marka laandheerayaal fara badan baa halka ka xanaaqay ninka barnaamijkiisa waxa la yiraahdaa qalbi itmaan baa la yiraahdaa dadka kurbaysan ee dhibto hayso ayuun baa loo tilmaamaa si kadiisu ugu tagaa u caawiya ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajar farban khayr badan ha ka siiyo Soomaaliya uu joogay maalmihii ugu dambeysay marka barnaamijyada Soomaaliya ka qabtay waxa aan ka daawaday barnaamij oo ay kamid tahay barnaamijka ninka macalinka uu wareysanayo halkan insha Allah soo dhigi doonaa adiguna ku daawan doontaane ninka macalinka ahi isagoo yaani aan waxba haysan oo quraac kaliya ilmihiisu ay haystaan soo quraacda maalinkii hal mar wax cuna ayuu madrasa iyo iskuul dhan wax u dhigay wuxuu yaani markuu hadlay macalinku wuxuu leeyahay habeenkii dadku markay seexdaan baan ugaarsi tagaa buu yiri oo ugaadha saydka aan soo ugaarsadaa si maalintii aan u cuno si aan awood ugu helo dadka masaakiinta aan wax baro ninkaas Soomaaliya uu tagay dad badan oo masaakiin oo laandheerayaal ah uu caawiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajar ka siiyo Soomaali badan oo iyaguna laandheerayaal kala ah oo xanaaqay baa jira iyaguna oo le muxuu saasoo nagu bahdilayaa duruuftaasi ma jirtaa nacam duruufta iyo dhibkaasi wuu jiraa waxaan loo baahan yahay in hadaynu laandheerayaal nahay aynu iska dulqaadano in la duubo marka bal fiidiyada ila daawada insha Allah ilaahina barkeeyo لا يعني في شهر تأكل غداء وفي شهر لا تأكل غداء. في شهر لا تأكل أحيانا سأتي الليل صحيح للخارج وسأقتل حيوانات برية سأدبر في عيش وناس لا يعرفون لا يعلمون سبحان الله لا يعلم سبحان الله والصلاة أبدو في المدرسة والله أعاند في كل حال. الله يعينك. تقول لي أن في بعض المرات لا تجد الأكل وتذهب إلى الصيد تبحث عن العشاء أو الأكل وثاني يوم من الصباح أنت مدرس ولا تبين للناس أنك محتاج صحيح؟ نعم 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 نعم. اليوم ماذا أكلت؟ ما في أكل والله ما في أكل اليوم في الفطور فقط. وفي الليل؟ في الليل إن شاء الله سأجد إن شاء الله. إن شاء الله سأجد. إن شاء الله. وزوجتك ماذا تأكل؟ في نصف الفطور. والأبناء الآن ماذا يأكلون؟ الطعام الذي تبغي. أما المسلم ما يحتاج لا يفرح لا وجد وإذا لم يجد يفرح. أنت مع كل هذه الظروف عليك دين؟ نعم. من كم سنة؟ 4 سنوات. من 4 سنوات عليك يعني مبلغ. والله الظروف صعبة. يعني كل شيء في القرية صعب حتى الآن لما نتحدث مع الناس نجد ظروف والله صعب. هذا البلد فيه خير كثير لكن ماذا تتمنى؟ أتمنى إن شاء الله بخير. بخير. إن شاء الله. أرجو الله بخير. سبحان الله في ناس